anigoo ku bilaabay kaalinta shanaad waxaa ku jira dalka Aruba. Dalka Aruba waa wadan jasiirad oo ka kooban qayb ka mid ah boqortooyada dalka Netherland. Waxay ku taallaa badda Caribbean-ka, kaliya 18 mayl waqooyiga dalka Venezuela. Dalka wuxuu ka kooban yahay wadar ahaan uu ku fadhiyaa 69.8 oo mayl oo laba jibaaran oo leh qiyaas ahaan dad tiradoodu ay tahay ilaa 103,400 oo ruux. dalxiiska halkan waxay ka dhigan yihiin qiyaastii 75% wax soo saarka guud ee dalka, iyadoo martida ugu badan ay ka yimaadaan wadamada Mareykanka, Netherland, Venezuela iyo dalka Colombia. qaar ka mid ah dalxiisayaasha ayaa inta badan ku dalxiisa meelaha caanka ay ku yihiin wadanka sida ciyaarta badda quusta, saafinka, dabaasha iyo booqashada beerta duurjoogta. dalka Aruba waxaa yimaada sanadkii ku dhowaad 10,318 milyan oo dalxiisayaal ah. kaalinta afraad waxaa soo gala jasiiradaha Turkish iyo Koys. jasiiradahan waxay ku yaalaan koonfur bari ee dalka Bahamas ee badweynta Atlantic. waxaa degan qiyaas ahaan 31,458 ruux. dalka Ingiriiska ka tirsan ayaa dalxiis ka hela dakhli qaran oo aad u badan. dadka halkan yimaada ayaa ka faa'iideysta cimilada kulaylaha iyo xeebaha leh ciidda cad. jasiiradda Turkish iyo Koys ayaa sidoo kale ah meel aad u caan ah oo maraakiibta dalxiisku ku soo xidhaan. sidoo kale dowladda dalka ayaa dadaal ugu jirta sidii ay u ballaarin lahayd dalxiiska maraakiibta iyo dekedaha. sanadkii 2010 ku dhowaad 617,863 dalxiisayaal ah ayaa halkan yimid, kuwaasoo maraakiib keligood ku yimid. Turkish iyo Koys waxay helaan qiyaastii 10.48 dalxiis oo loogu talagalay qof kasta oo degan deegaanka. kaalinta saddexaad waxaa ku jira jasiiradda Ingiriiska ee Virgin Island ee ku yaalla badda Caribbean-ka oo ku fadhiya aag guud oo ah 58 mayl oo laba jibaaran. dalkan Ingiriiska weli ka tirsan wuxuu ka kooban yahay jasiirado dhowr ah oo ugu waaweyn oo ay ka mid yihiin Anegada, Tortola iyo Virgin Gorda. iyadoo ay ku jirto cimilada kulaylaha xeebaha quruxda badan ayaa jasiiradahan waxaa u soo dalxiis taga dad aad u caan ah, waana meel loogu talagalay fasaxyada caanka ah. dalkan wuxuu dalxiiska ka helaa ku dhowaad kala bar lacagta dakhliga qaranka, iyadoo oo qayb weyni ay ka mid yihiin imaanshiyaha rakaabka doonyaha ee xamuulka. sanadkii 2006 jasiiradaha waxaa u soo dalxiis tagay in ka badan 825,000 oo dalxiisayaal ah. kaalinta labaad waxaa ku jira dalka Macau. dalka Macau waa maamul goboleed ka mid ah dhulweynaha Shiinaha. waxay ka kooban tahay aag guud oo ah 44.5 mayl oo isku wareeg ah, waxayna leedahay qiyaas ahaan degan dad tiradoodu ay tahay 6,050 oo dad ah. dalkan ayaa si gaar ah caan ku ah dalxiisayaasha kuwaas oo rajeeya inay booqdaan goobaha khamaarka iyo inta lagu jiro fasaxooda. waxay u tahay goob ganacsi weyn oo khamaar leh iyo dhowr hoteel oo kuwa raaxada ah. ka badan 16 milyan oo dalxiisayaal ah ayaa booqda Macau sanadkii 2014, taasoo macnaheedu tahay wadanka wuxuu helay qiyaastii 24.8 dalxiis oo loogu talagalay qof kasta oo degan Macau. kaalinta koobaad waxaa soo galay waa dalka Andorra. Andorra waa wadan yar oo dhulkeedu ku yaala galbeedka Yurub, waxayna ka kooban tahay aag guud oo ah 180.55 mayl oo isku wareeg ah, waxayna xuduudo la leedahay wadamada Spain iyo Faransiiska. inta badan wadanka waxaa ku daboolan buuraha Pyrenees, taas oo ka dhigaysa meel udub ah oo caan ah oo aad u qurxoon oo leh dalxiisayaal. inta lagu jiro bilaha xagaaga, Andorra waxay ku caan tahay ciyaarta barafka sida skiing iyo buuro korista sida hiking.